qofkaas u niyeysata ahlis wanaag u niyeysa si wanaag u heshin horumar u niyeyso farxad u niyeyso in ceebtiis ilaahay astur u niyeyso adiga ilaahay yaa ku siinaya markaas laakiin adiga la niyeysan adiga niyeysatid qof walaalka waxaan u rajist waxa sahil assalaamu alaykum wa idin salaam asxaabtayda qaaliga waxa rajeynaa in ay caafimaad qabtiin waa aniga oo ifraaxay janalka igala socoto ifraaxayna janal falna hadaan ugu cusubtahay soo dhawaaw gacmo furan qalbi furan subscribe tana noo saar insha Allah waxaan rabaa maanta qodob aad muhiim ah inaan ka hadlo qodobkaas oo sida ugu fudud ee horumar ku gaari kartid marabta noloshaada ina farxad ku noolaatid marabta noloshaada inay horumarto يعني qaabka ugu fudud oo farxadna ugu noolaa kartid horumarna aad ku gaari kartid waa dhowr shay oo aad u fudud kaliya inaad sameysaa number 1 qalbigaaga waa inaad nadiifisaa qof qalbigiisa nadiif yahay waa inaad noqotaa oo xaasid aan aheenin oo cuqdad aan aqoonin oo cafis badan number 1 cafiska horta qof cafis badan waa inaad noqotaa si walba lagaaga qaldan yahay ilaahay dartiis waa inaad cafisaa qofka adiga fiirin shaydaanka damiirta iyo wax uu ku gelinayo aan uu quraay qofka sas ku yeelo ma cafini qofka kan ku yeelo ma cafini yaa waa cafinaysa iska cafi ilaahay dartiis uu cafi yani ma ku dhahay qofkii dhaxgal ama kalsoonisi ama la soco qofka ku xumeey iska cafi ilaahay dartiis uu cafi ilaahay dartiis uu cafi cafiska horumar lagu gaaraa cafiska in allaha yuhibbu saabiriin dadka sabr ilaahay aad u jecel yahay iskaga cafi qofka kugu qaldamo lambar 2 qalbigaaga nadiif yani qalbigaaga nadiif marka ku dhahay waa qalbigaaga cuqdad ka saar xaasidnimo ka saar qof walaalkaaga waxa naftaada la jeceshaa la jeclaaw qofka walaalka waxa naftaada la jeceshaa la jeclaaw qofka walaalka waxa naftaada la necebtaa la necbaaw ha ka xumaanin horumarkiisa ha ku farxin xumaantiisa يعني horumar gaaraysa laakiin hada qof walaalka ka xumaatid mar walba farxadiisa aku mashquulshid dib u dhiciisana aku farxid waxa xaqiiqay inaad horumar gaareen oo qofkaas asaga u daneysa horumar gaarayo qofkaas asaga wanaag helay aday xumaanta ku soo aadeysa yani adi marka qof niyadaada xumaan ugu heesid ama maxaa ku dhahay wanaagiisa ka xumaatid ceebihiisa raadisid ilaahay adoo ceebtaada keena qofkaas waxba ma ogo waxa u shaqeynaysa wanaaga u shaqeynaysa farxad ku noolaanaya horumar u gaara wixii asaga aad la rajeynaysa dhan adaa helaysid wixii adi aad rajeynaysana asaa helay soo qofku walaalka wanaag la jeclaa horumar la jeclaa ceebtiisa dunia aakhir inta qari karti qari adna inta asaga la rajeysa adoo ilaahay ku siinaya adoo ilaahay wanaag ku siinaya adoo ilaahay horumar ku siinaya adoo ilaahay ceebtaada asturaya soo marka qofka xumaan hala rajeynin adaa rajeysata wallahi waxa uma leeyahay adi qofkan ina xasdeysid qofka ina qalbiga cuqdad u weys laakiin waxaas qofka aad u rajeysid adaa helay ma fahmoosa qofkaas wixiisa adi la helay soo marka wadiiba oo wixii qofkaas u niyeysata ahlis wanaag u niyeysa si wanaag u heshin horumar u niyeyso farxad u niyeyso in ceebtiis ilaahay astur u niyeyso adiga ilaahay yaa ku siinaya markaas laakiin adi la niyeysan adiga niyeysatid qofka walaalka waxan u rajist waxa sahilaysa laba waay Soomaha taa sabarka iyo ina qalbigaaga nadiifisid waa aad u fududaa wallahi si horumar lagu gaaro ilaaha ku siinaayo teeda kale inta dadka caawi sida u jeceshaa in lagu caawiyo u caawi dadka caawi qofka walaalka mar walba wixii awoodid ku caawiyo yani wax siismo ma ahan in wax kaaga baahdaa laga yaaba xoogaaga fikradaada aqligaaga wixii dheerta maanta ogtahay qofka walaalka ha ku xasdin ku caawi adna bari qof ku caawiya helay familkaaga lagu caawina hooyada walaalaha kulli inta geesatid adig kelima helaysid jisadeeda ilaa familkaaga helaayo ma fahmay farxadna waa ku noolaanay qalbigaaga doo nadiif yahay dadka aad dabar raacin ceebahooda dadka aad xasidin qalbigaaga nadiif yahay qof walba iska caabisid qof walba waxa maanta ku tari karto ku tartid aqli ha ahaato xoog ha ahaato xeelaha ahaato fikrad ha ahaato aqoon ha ahaato wixii aad dheerto dhan qofkaas marka ku caawisid adna qof nadiif oo stress la'aan noolaan noqonay laakiin waxa stress ku noolaanay maalinka qalbigaaga cuqdad gelisid qofkaan muxuu helay qofkaan waxa ku dhac qofkaan muxuu saan yeel qofkaan ku mashquul adina shooga ku furma itishush horumarna wiliga ma gaaraysid meeshas wiliga wallahi ma ka dhaqaaqaysid wallahi billahi ma ka dhaqaaqaysid ceebaha dadka la raadinaysid wallahi aday ku dhacayaan dadka farxadooda aad ka naxaysan wallahi adaa murug ugu dhacay wallahi xaqiiq waay taas ilaahay waxa niyadaada gelisid loo ku siina kulli shay biniya ma fahamtay niyadaada nadiifi horumar hadaa rabto farxad hadaa rabto inaad ku noolaato niyadaada nadiifi 2 sabar 3 cafi dadka qofka ka khaldamo ilaahay dartiis ku cafi damiir iyo shaytaan iyo waxaas waxba ku tusin
إلهي درتيس إسكيك عفي لكن قفك فراها كقاطها دح قلم بناك كمان لكن إلهي درتيس عفي ودعي وحياله طبعا إنه إله أفضل وحرب إنه إله أسقر أدعي أدنى إلهها قصينا دعاء سؤال أخبلي أصلا يقفك سؤال سينا أذن واهله إلهي أدنى وحاو كوفضنا مرادها عيبها وأسطرايا إن شاء الله وحارجينا يا إنا إفهم دونتينا حكاها الله وفائدة والله أدوني أقرأ فائدة أدون كنا فرحة كنولانا الشرف عزي كرامة كنولانا سا ينول فرحة الآخرنا إلهي ميزانك آخره كوسارة بكوس إلهي هذا وجعلها ضدك صبرو ضدك عفيو ضدك قلبي نظيف كي هاي هرمرنا وجارسة أدوني آخر مركب فائدة وح أشق كارب وابي قلبي قاعد نظيف ضدك عفي ضدك وفائدة ضدك عاوي فضيت هذا أفضل أذن وفائدة أدوني آخر أدوني هرمرك وجاري آخرنا ميزانك آخر حسنات إلهي كوسارة يا وحكى الله إنا فهمتين رجينا يا إن شاء الله إنا فهمتين وسميت دونتينا أنا رجينا يا إلهي نفتين أنا شيطان إيو عدو تنمو إيو محاقل آي حسد إيو محاقل وسواس إلهي هنغا سارو إلهي مرور بحالو بريا إلهي قلبك إيو قشوعي عبسد هذا إيو بير إلهي نحريست هذا قلبك إيو بير مرور بإلهي لغتوغا أنا وادريمي كرايا وان أوغا هاي دادك قار أيغو إسدهين وحان سماي ويكو أبورانتا وح قف وناكساني أركان وإسكو نحايان قف وحن كدعاي ويقسلان قف كان وحن هذا يكون عن معنى هذا ما هذينا وحفي عن هلوس أسي كل عين قف كان هذا وحفي عن هلو معنى هذا ما هذا إن وناك كوسو سعودي في عنانتي كان نسقامس ما كان نسقامسو قف والالكاها هلي أنا والله بالله شخصي وحاب جعل قف والالكي إنه وحلو because si oo iigu mashquulin bo oo asi wax helo laakiin aan la wax helo asi wax helin qofkaas ishiisa ku dhacayso koow laba aduuba kugu mashquulaa noloshaadu soo fiirina oo isxumeena oo isxuqdadeena laakiin asi ha helo wallahi dib ma la ana ilaaha qaba ilaaha isiinaayo laakiin asaa la rabaa wax asi ha helo si oo warta iigu mashquulin oo asi noloshiisa ugu mashquulo ma fahmuusa marka qofka walaalka mar walba hormari asaga marka asi hormarisid adi noloshaada ilmku dhacayso qofku ugu mashquulo ku xasdama arkays qof walba hadoo wax helo way fiicanta qofka walaalka waxa ugu naxay hadoo wax helo ma sha Allah waa la wada farxa waa la wada dhaqma qofkaana wax helo adina wax weynaysid ma qof walba irsaaqadiisa gooni waa qof walba wixiisa gooni waa qofka haday xumaan ku dhacdo macnaheedu ma adina inuu wanaag ku dhacayo ma fahmi marka qofka walaalka saa naftaada ugu naxaysid ugu nax hormar hadaa rabtid waa hormar lagu ma gaar inaa shaqaysatid inaa wax tabacadid hadaa qalbiga xaasid ka taa si walba u shaqaysatid oolaad walba dhashid wax walba nolosha la helo ahaysid waxba kuma intifaacaysid midda kale ugu muhiimsan waxay tahay ducada waalidka baari u noqo waalidkaaga jeclaa waalidkaaga u dhagnugla waalidkaaga mar walba inaa ka farxiso isku day wallahi adna ilaaha ka farxinayo adduunyo aakhiro marka wallahi horumarka aad u fududay ana waxa umaleena ina wax hanti la dabco in la ordo in la shaqeeyo farxin qofka wax ma haysta shaqaysata nolol haysta adduunyo haysta si nolosh waa ka jijamata ha ku farxin dunyada waara adduunyada wareeg waa bariya kugu imaan kartaa u farax adna taada ilaahay ku barakeena asagana ilaahay mid qeyr qabtaa si laakiin khatar hada iska dhigo oo ana qofkan waa ka nolol sare waa ka khatarsana waa ka yeelsanahay la waxa baabahe noqonaan asaa wax helaayo marka waliga naftaada waxa la jeceshaa qofka walaalka la jeclaa ma fahmuusa waalidkaagana baari u noqo sabarkana badi qalbigaaga nadiif cuqdada iyo waxa iska saar waxa waaye horumar hadaa rabtid horumar adduunyo la shaqeeyo iyo orod iyo dadaal lagu ma gaaro horumar waxa lagu gaaraa inuu qalbigaaga naxariis leeyahay bini aadanka dadka walaalaha caawisid familkaaga hooyada ay aabaha inaad ka duceysatid naftaada waxa la jeceshaa dadka inaad la jeclaato qofka kugu qaldama ina maxaa ku dhahay u sabartid halahaas horumar lagu gaaro hanti walba leedahay baawur walba leedahay guriyo walba leedahay wax ma ku taraysa hada qalbigaaga oo wasaqay hada dadka caawinayna hada caasitay wallahi wax ma ku taraysa wax ma ka faa'iideys murugi stress ku noolaanaysa mideeda kale inta horumarna ma gaarayso wax walba aad sameeysid every noqonay meeshas ma dhaafaysid si walba u dadaasho nolosh meesh ma dhaafayso waxba adoo qabsan oo iska jiifado qalbigaaga nadiif ah wax walba ilaaha kula soo raadsanayo marka insha Allah waxa rajeynaa inaa ka faa'iideysateen mar oo fiidiyoogana idinku dheereeyo ilaahay xaqana faansi ilaa qalbigeena noo nadiifiyo ilaahay kuwa oo iscaawiyo isku sabro isku naxariisto ilaahay ha naga dhigo biidnillaahi albaari waxa rajeynaa inaa ka faa'iideysateen waa inoo fiidiyo dambe xiiso leh insha Allah fadlan subscribe ta iyo hilmaamin like ta wixii dhiirigelina commentiga insha Allah. Assalamu alaykum.